Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada walaalayaal, magacaygu waa Cabdullaahi Maxamuud. Maantay waxaan la wadaagayaa 3 qaab aad wax kasto aad xifdinayso aad waqti yar kaaga qaadanayo, haddana mar kasta waxa weeye maskaxdaada ku jiri doona oo noqon doona sidii qaab dhacda oo noloshaada waxa weeye ku saabsan. Badanaa waxaan ognahay markii wax ina soo maraanin in sideen ku ilownay aad u adag tahay. Marka ma ku haysataa cilada ah markii aad wax xifdido oo aad imtixaankii ku gasho kadib asbuuc ama waxa weeye bil ka bacdi inaad wixii waxba ka xasuusan. Marka runtii aniga ciladaas way haysatay in badan bay haysatay. Waxa weeye wixii goortaan dhigto school sare jaamacadii goortaan semesterradii dhameeyo runtii waxa weeye goortaan imtixaanka galo haddii bil ka bacdi wax laga weydiiyo ama waxa weeye asbuuc ka bacdi wax laga weydiiyo wax aan ka soo celin karay ma jirin. Waxa weeye waxaygo dhan waxa weeye buugga intaan saa uga soo akhriyo oo sida dhalinta Soomaaliyeed hadda ay u badan tahay oo waxa weeye waxbarashadeeduna ay ku saleysan tahay Soomaaliya oo dhan systemka waxbarasho oo copy and paste intuu ardaygii wixii soo qaybo buuggii ka soo qaybo wixii hadhow ilaawayo. Taasna runtii waxa weeye wax aqoon lagu tilmaami karo maaha oo waxa weeye waa lugooyin ardayda weey. Marka waxaan rabaa inaan 3 qaab aan kula wadaago oo aad runtii waxa weeye faa'iido weyn leh oo aniga i caawiyay runtii. Waxa jira waxa ka qaadanaysa waqti yar ku qaadanaysa wixii inta xifdinaysa waqti yar sidoo kale wixiina mar kasta waxa weeye maskaxdaada ku jiraysa. Haddii ku bilowno qodobka koowaad waxa weeye waa mala awaal inaad wixii mala awaasha chapterkii aad baranayso kale inaad mala awaasho. Matalan waxa baranaysay bangiga iyo qaabku u shaqeeyo kale tusaale u soo qaadanayna. Bangigii waxa weeye waxa la rabaa inaad mala awaasho aad tiraahdo okay bal bangigii baan tagayaa hadda oo aad indhaha intaas ku qabato bal mala awaal si mala awaala bangigii inta dhex istaagto bal aad saa u fiiriso bal wixii dadku qabanayaan. Runtii waxa weeye maskaxdaadii buuggii bay ka tagaysaa. Buuggii copy and paste-gii way dhaafaysaa. Waxa weeye maskaxdaadii waa balaaranaysa oo waxa weeye runtii mala awaalka aad buu ku anfacaya. Matalan bangigii baa saad u dhex istaagaysaa saasaad u fiirinaysaa waa dadkii oo soo galaya oo waxa weeye qayb lacag dhiganayso qayb lacag ka qaadanayso dadkii oo la siinayo deemam la siinayo. Waxa weeye inaad soo xifdido maanta la xifdido wuxuu bangigu qabto iyo bangigu wuxuu yahay oo inuu deposit sameeyo loan bixiyo deyn bixiyo. Runtii waxa weeye haddaad qaabka u xifdido waxa weeye wax sahlanaanaysa inaad markiiba aad ilowdaad. Laakiin haddaad qaab real life aad u mala awaasho bangiga tagto weligeed waxa weeye waad kaanaysaa in maskaxdaada ay ka baxdo. Sidoo kale tan labaad waxa weeye waa implementation oo fulin. Wixii inaad fuliso chapterkii maanta lagu soo dhigay oo kale inaad fulisaan intaad maanta leel buug 10 saacadood fadhin lahayd. Tusaalahan bangigaas kala deyn oo sii wada tusaale oo soo qaadaysa waa inaad bangiga tagtaa oo waxa weeye aad fiirisaa qaabkii waxa uu u shaqeynayay oo waxa weeye wax loo bahalkeeyay shaqadu u socoto wixii dadku u baahan yihiin. Runtii waxa weeye tanna waxa weeye wixii waa adkaanaysa maskaxdaada ay ka baxdo maalinta waxa weeye chapterka baratay oo implementation-ka u soo samayso. Wax wada ognahay khibrad shaqaale la qaadanayo hoos shaqaalaha waxa weeye lama qiimeeyo shahaadada iyo waxa weeye inuu waxa weeye meel sare wato kaliya waxa ka muhiimsan waxa soo khibrad. Marka tani waxay ku noqonaysaa qaab khibradeed oo kale runtii way adkaanaysaa in maskaxdaada ka baxdo. Waxa weeye chapterka implementation-ka ku samaysay waxa weeye aad fulinta ku samaysay tagtay meesha saa ku tagtay runtii waxa weeye way adkaanaysaa inuu ka baxdo. Taas waxa weeye waa tan labaad. saddexaad waxa weeye waa sharing inaad waxa weeye aad la share garayso asxaabtaada. chapterkii baa soo akhriday waxa weeye implementation-kii oo kale waa soo samaysay mala awaalkii baa samaysay inaad asxaabtaada la wadaagtaa saaxiibkaaga oo kale aad u sharaxdo waxa weeye wax wada ogsoonahay waxa weeye waxaan asxaabteena ay u sharaxdo way adkaataa inay loo si sahlan laakiin waxa weeye haddii labadan hab oo kale ku daro runtii way adkaanaysaa sidoo kale marar Soomaaliya joogna waynu qaadkaan ka dhacay
iyadana